kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada tabintan gaarka waxyaabaha ugu waaweyn ee idinku soo gudbin doona waxa qayb ka wararkii ugu dambeeyay qasaare ka dhashay wararkii maanta lagu qaaday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo xarunta Xalane qasaare xooggan ayaa jiro waa kuma cid u fududeysa al-shabaab garitaanka goobta sida adag loo suga amnigeeda xog ku saabsan ayaan idinku soo gudbin doonaa warbixintan gaarka al-shabaab oo si la yaab looga hadlo weerarada maanta ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo xarunta Xalane banaankana keenay xogo badan oo qarsoon ajaanib badan ayaa halkaas ku dhintay siyaasiyiin iyo madax ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo si degdeg ah ugu baaqay in la bedelo hoggaanka sare ee ciidamada dawladda Soomaaliya maxay ka dhigantaa weerarka al-shabaab maanta ay ku qaadeen Xalane iyo garoonka Aadan Cadde maxay tilaabada la gudban dawladda federaalka ee Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay xogo ka qarsoon ayaan halkan ku faahfaahin doonaa fadlan muuqaalkan nagala qayb qaada baahitaankiisa adigoo baraha kale ee bulshada ku sii share gareynayo oo saaxiibadaada si gaarsiinayo sidoo kale ku soo bir boggeena Somali News oo follow gareey sidoo kale YouTube-kana booqo oo subscribe ka soo saar halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa alaaba wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya arrimaha siyaasadda iyo kuwa caalamka xogo ku saabsan xaqiiqda oo aan idin soo xulnay haddii aynu ku hormarno saakay xilli barqa ah waxa weerar xoogan lagu qaaday iridda laga gala xerada Xalane iyo sidoo kale qaybo kamid ah garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho taliska booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin hordhac ka bixiyay weerarada culus ee barqanimadii maanta lagu qaaday xerada Xalane ee magaalada Muqdisho kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo baaxad weyn leh afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in weerarkaasi ay qaadeen laba kamid ah kooxda al-shabaab ayna galeen xero u dhow garoonka diyaaradaha Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ciidamada ammaanka ay ka hortageen weeraradaas oo ka yimid dhinaca xerada Marina Gate ee laga soo galo garoonka dhinaca xerada Xalane su'aalo badan ayaa ka dhashay weerarka oo aan horey loo arag oo dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ku qaadeen garoonka diyaaradaha iyo xarunta Xalane iyagoo qasaare dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed halkaas ka geystay al-shabaab ayaa u suurta gashay in albaabka Marina Gate ay laga soo galo garoonka Aadan Cadde u adeegsadaan inay dagaalyahano ka tirsan halkaas ka gudbaan iyagoo oo howlgalo ka fuliyay gudaha xarunta saacado kadib inta aysan ciidamada amniga aysan dilin halkaas gaaray taliska booliska Soomaaliya ayaa sheegay in laba nin oo dhalinyaro oo ku hubeysan baskoolada isku soo dhax qariyeen shaqaalaha muruqmaalka ay ka xoogsada garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kadibna ay rasaas ka bilaabeen kontaroolka koobaad ee lagu baaro dadka iyo gaadiidka taliyaha booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in laga hortagay kooxdaasi iyagoo shaqaalaha garoonka isku ekaysiinaya soo weeraray kontarool laga soo gala garoonka ee diyaaradaha Marina Gate baskooladaha iyo ku hubeysnaa waxa halkaas ku yaala goobo ganacsi oo u badan dukaanada dad shacab ay leeyihiin ayuu yiri General Xijaar xogaha ayaa tilmaamaya in booliska warka ay soo saareen oo ka hor imaanaya xaqiiqda ka dhacday garoonka diyaaradaha iyo qasaaraha wararkaasi u geystay waxaana muujinaya beelahda amni ee weyn ee ka jirta xaruntaas oo ah goob muhiim ah dhankooda al-shabaab war ayay ka soo saareen weerarka ay ku qaadeen xerada Xalane iyo sidoo kale garoonka Aadan Cadde al-shabaab ayaa sheegtay weerarka xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho ee saldhigga ugu weyn ah ciidamada AMISOM ayna degan yihiin safaaradaha shisheeye ee Soomaaliya oo ah goob aad amnigeeda loo adkeeyo balse muwaantay weerar qasaare weyn geystay ay ka sameeyeen al-shabaab war lagu baahiyay warbaahinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in dagaalyahano ka tirsan gudaha u galeen xerada isla markaana ay dileen askartii ugu horeysay oo ay la kulmeen sidoo kale weerarada maanta al-shabaab ay ka sameeyeen halkaas iyo hubka dhinacyada dagaalamay isku adeegsadeen ayaa sababay inuu dab qabsado goob shidaal oo ku taala gudaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho taas oo dhankeeda sababtay qasaare weyn al-shabaab ayaa gudaha u gashay xayndaabka garoonka diyaaradaha iyo xarunta Xalane weerarkoodii koobaadna la galay xarunta hay'adda maamusha eeyaha baabuurta baara sidoo kale weerarka markii bilowday waxa hay'adda duulimaadka rayidka ay joojisay dhammaan diyaaradihii imaanayay iyo kuwa ka bixi lahaa garoonka Aadan Cadde kadib markii uu yimid weerarka al-shabaab xilli la gudagelayay shaqooyinka maalinlaha ah sidoo kalena lagu hawlanaa debinta kaalin shidaal oo garoonka dhexdiisa dab ku qabsaday qasaaraha ka dhashay weerarka al-shabaab maanta ay ka fuliyeen gudaha xerada Xalane ayaa baaxad weyn lahaa balse xogaha ay helna ayaa sheegaysa in ugu yaraan 6 qof la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarkaas oo al-shabaab ay ku qaadeen xerada Xalane ee magaalada Muqdisho sida ay xaqiijiyeen booliska Soomaaliya afayeenka booliska Soomaaliya Gaashaan Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa sheegay in 6 qof oo 5 kamid ah yihiin ajaanib isla markaana ku guda jiray ilaalinta amniga iyo sidoo kale isugu jira ciidamada AMISOM iyo dad kale oo ajaanib ah halkaas ku dhinteen
waxaa intaas uu ku daray in dadka dhintay sidoo kale ay ku jireen tababarayaal ka caawiya dowladda dhinaca tababarada qaraxyada balse uusan shaacin dalalka ay ka soo kala jeedaan. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka dhawaajiyay labadii nin ee weerarkaas soo qaatay muddo badan oo halkaasi ka dhex dagaalamayeen kadib inay u suurto gashay inay ciidamada Haram Cad oo halkaasi gaaray goor dambe ay joogtaan. khasaaraha ayaa intaasi ka badan walow aan si dhaba baaritaan xaqiiqda ku saleysan aan la sameyn. weerarada Al-Shabaab maanta ay ka fuliyeen garoonka diyaaradaha gudihiisa iyo xerada Xalane ayaa sababay cabsi weyn iyo sidoo kale fajac aad u tiro badan maadaama ay ahayd goob aad amnigeeda loo adkeeyo. weerarkan ayaa dhaliyay hadalhayn weyn iyo shaki xoogan oo ku aadan sida loo soo abaabulay maadaama lala beegsaday xero si weyn amnigeeda loo ilaaliyo. xaaladda ayaa weli kacsan waxaana halkaasi laga dareemayaa cabsi aad u xoogan oo soo wajahday ajaanibta ku sugneed. xildhibaan Mahad Salaad oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in weerarka lagu sameeyay gudaha garoonka Aadan Cadde iyo xerada Xalane uu yahay mid aad loola yaabo. Mahad Salaad oo weerar afka ku qaaday maamulka madaxweyne Farmaajo ayaa shaaciyay in ayaan darro weyn tahay in hoolka 5 sano ka hor lagu doorto maanta ay rasaasi ka dhaxdhacayso taas oo sheegay inuu ku fashilmay madaxweynaha iyo maamulkiisa hogaanka ugu sareeya dalka waa sidoo hadalka u dhigay. dhanka kale gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ahna musharax madaxtinimo ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo gaareen fariimo amni oo la qorsheynayo in weerar lagu qalqal gelinayo amniga dalka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay sidan ku yiri maalmahan oo dil waxa ay soo gaarayeen digniino isu soo taraya oo ku aadan amniga dalka shakhsi iyo in la qorsheynayo weerar lagu qalqal gelinayo amniga laguna abuurayo cabsi gelin. weerarka maanta ayaana qayb ka ah ka dhacay xerada Xalane. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in weerarkaasi lagu qaaday garoonku yahay mid aad loo fududeeyay waxaana muuqato in ay gacan weyn ka dambeysay fududeynta weerarkaasi. Al-Shabaab xoog kuma gelin gudaha waxayna caddahay in lala shaqeeyo loona fududeeyo howlgalka. waxaan inoo muuqata in weerarkaasi maanta jawaab u ahaa fariimihii ahayd in doorashada gudoonka baarlamaanka lagu qabto teendhada Afisyoona ayuu yiri mar kale. dhanka kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa carabka ku dhuftay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble uusan indhaha ka daboolan xaaladda amni ee ka jirta xilligan dalka isla markaana hogaanka ugu sareeyo laamaha amniga isbedel lagu sameeyo si xaaladda intaan uga roonaato. hadalkan ayaa ku soo aadayay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame iyadoo maanta xerada Xalane weerar khasaare weyn geystay rag ka tirsan oo hubeysan Al-Shabaab ay ka fuliyeen. dhawaan ayay qorshaha in la guda galo doorashada aqalka gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya balse tan ayaa dib u dhac weyn sababi karto maadaama xaalad amni oo cakiran ay ka taagan tahay goobihii lagu qaban lahaa. dhanka kale muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa ku xayiran garoomada diyaaradaha ee dalalka dariska waxaana qayb ka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya kadib safar diyaaradda Ethiopian Airlines ay ku soo ahayd magaalada Muqdisho taas oo hakisay weerarka lagu qaaday garoonka iyo xerada Xalane. wararka naga soo gaaraya caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa ayaa sheegaya in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku xayiran yihiin garoonka magaalada Addis Ababa ee Bole International Airport kadib markii diyaaradda Ethiopian Airlines ay kansashay duulimaadkeedii Addis Ababa ilaa Muqdisho. sababaha shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ay ku xayirtay duulimaadkeeda Muqdisho ayaa ahay weerarka maanta ay ku qaadeen Al-Shabaab gudaha garoonka Aadan Cadde iyo xerada Xalane. dhacdadan ayaa ku soo aadaysa xilli maanta weerar adag garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho koox ka tirsan Al-Shabaab ay soo weerareen mas'uuliyadoodana sheegteen. saameyn weyn ayaa ka dhalatay weerarka maanta Al-Shabaab ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kaas oo sababay hadalhayn weyn. sababta ka dambaysa fududeynta weerarkaasi iyo sidoo ugu suurta gashay in Al-Shabaab oo xoog aan weerar ah ku galin garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale xerada Xalane ay ka dhex dagaalamaan muddo saacada. ciidanka Haram Cad oo gaaray goob dambe weerarka halkii uu ka dhacay ayaana toogtay dhammaanba shakhsiyaadkii weerarkaasi soo qaaday ee ku sugnaa gudaha xerada Xalane ee sababtu ah inay toogtaan dad badan oo ajaanib ah iyo kuwa Soomaaliyeed oo halkaasi ku sugnaa. inta ayaan kusoo gabagabeynaa qiyaaray tabintan gaarka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News fadlan muuqaalka sii share garay saaxiibadada kala sii gaarsii bogona kusoo bir YouTube-keena booqo waad ku mahadsan tahay la socoshada wararkeena mid lamid inta kulmi doona nabadgelyo.